بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا مقعد يا عبد الفتاح أحمد شرع أنا قدوميها مدوغ أرضية كلية عافيمات كجامعة بناندر waxaan maanta halkan ku qabanay hawl run ahaantii muhiimad weyn u leh bulshada degan degmada Xamar Jajab taasoo ah ka hortagga arag la'aanta kaasoo ay soo qaban qaabiyeen howsha xoogeeda ay lahayd hay'adda Safe Division oo nagala joogay Dr. Maxamed Kooshin iyo Dr. Abdikariim Cabdullaahi Faarax oo ah Joint Committee oo MC Abu intaas kadib waxaa farxad weyn noo ah programkan in la qaabilay ku dhawaad dad gaaraya boqolaal kuwaasoo laga fiirinayay cudurrada ku dhaca indhaha ayadoo meesha aan ku bixinaynay daawooyin dadkana loo qorayay wixii qaliin u baahda qaliin inay aadaan isbitaalada hay'adda iyo isbitaalada dalka waxaa nasiib wanaag ku dhawaad 17 qofood ayaa waxaa loo qoray maxaa lahaye inay yihiin qaliin intaas cadad kasii ziyaada ahna waxaa la siiyay daawooyin qaarna aragooda ayaa fiicnaa oo waa la diray intaas kadib waxaa farxad weyn ah in bulshada Soomaaliyeed ay u soo baxeen dhalinyaro run ahaantii jaamacadaha dhigta kuwaasoo ah dhaqaatiir ahna dhalinyaro sida la jeeday waxaa marka dareemeynaa in kaalinkii dhalinyarnimada ahaa ee aan ku lahayn bulshada dhexdeeda in ay bilaaw noqotay waana rajaynaynaa in kaalmada noocaan oo kale oo bulshada aan u wadno inaan sii siyaadin doono hadduu ilaahay idmo biidnillaahi alkariim markii ugu horreysay oo inanka ka dhaqaadir ahaan barnaamijkan Filisiin mase waxaa jira barnaamijyo kale oo hadda koor ah Filisiin ama degmooyin ama goobo kale ka Filisiin aad u mahadsan tahay shalay abaar 3 subaxnimo ama 9 subaxnimo xilliga loo yaqaano waxaan barnaamij caynkan oo kale ah aan ka fulinay iskuulka Hooyga Xamar kaasoo asagana looga hortagay maxaa lahaye arag la'aanta barnaamijyadana way sii socon doonaan hadduu ilaahay idmo bulshada Soomaaliyeedna waxaa rajaynaynaa in la yiraahdo 70% 80% way ka badbaaday arag xumada insha Allah ta'ala hadduu ilaahay dad qaliin ayaa maanta noo sheegtay oo qaliin u soo baxay inaka istaalla xiriir la leeyahay miyaa jira oo ima jaamacadda u furan ama si kuwa si bareefad u furan oo dadkaas aadii tagaan la qalay si oo mataqaan free loo qalay mase dadka inagu waxa ay sheegeen inagu waxa wadiin in qofka cadeysin dhibaatada iyo cudurka uu qabo ka bacda asagoo uu aado istaalada aad ma san tahay anagu hooshayna waxa weeye in bulshada aan ka tijaabin aragga waliba anagoo wadana in qalabyo casri ah bulshada wixii daawooyin ahna la daweeyo wixii qaliin ahna in qaar kamidna free lagu siiyo in qaarka soo harana ay lacag ay la baxaan hadduu ilaahayna biidnillaahi tacaala ugu dambeyn mashruucan maanta miyuu ku egyahay mase waa sii wadi doontaa mashruucan waa sii wadi doonaa hadduu ilaahay idmo dhowr qaaboodna waa wadi doonaa degma ahaanna waan wadi doonaa hadduu ilaahay idmo iskuul ahaanna waan wadi doonaa hadduu ilaahayna biidnillaahi alkariim